Asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelka shalay waxaynu ka soo hadalnay qaabka aa u samayn lahayd linking led adoo isticmaalaya Tinkercad iyo Arduino ayadoona board lagu xiraynin maanta waxaan isla baranaynaa qaabkii aa u samayn lahayd naqshad noocaas ka duwan casharkii labaad kusoo So hadda dhawow waxaynu soo galnay Tinkercad-ka soo galnay. Si aan u sameyno yacni blinking LED-ka cashirkii ka horreeyay waxaa ku sameynaynay inaa micnaha meeshan oo Arduino-ha aan ku rakibaynay. Micnaha labadaana isku rakibaynay marka yacni katanoga iyo resistor-ka. Resistor-ka waxaa ku rakibaynay pin 13 kanna waxaa ku rakibaynay GND-ga haddii aa rangaraysid by default uu shaqaynayay micnaha nalka iska blinking uu sameynayay. hadda micnaha si taas ka duwan aan sameynaynaa waxaan sameynaynaa in yacni annaga kood intaan qorano oo anaga aan rangaraysano koodkeena. So hadda waxaan u baahannahay board aan u baahannahay ama breadboard aa loo yaqaanaa. Breadboard-kan marka yacni si aa u isticmaashid yacni waxyaabahaadii meeshan leerkaadii aa meeshan soo gashanay waxaa soo gashanay resistor-ka soo gashanay resistor-ka marka rotate aa ku sameynay rotate. marka resistor-ka waxaa lagu aadiyaa lugtan gaaban lugtaana waxaa lagu xiraa qaybtan oo minuska lagu xiraa. So breadboard-ka wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood. qaybtan ujeedaa wuxuu ka qaataa dabku ka qaataa. haddaa meeshan Arduino uga rakibtid oo GND-ga meeshaas hadaa ku rakibtid waxaa isticmaali kartaa qaybtaas kore bis. laakiin haddaa rabtid inaad qaybta hoose isticmaashid waxaa u baahan tahay inaad qaybta hoose qaybta minuska aa ku rakibtid GND-ga. marka falaarta saarta yacni fiilada saarta yeeli kartaa kaliya waxaa lagaaga baahan yahay inaad meesha GND-ga ku rakibtid qaybta minuska qaybta positive-kana aa ku rakibtid maxaa la yidhahdaa 5 voltage-ka oo ah meesha uu dabka ka qaadanayo. marka hadda qaybtaan oo dhan waxay leedahay dabay leedahay qaybtaas oo dhan dabay leedahay waxaa rabtid pointimeter soo gasho waxa yacni ay nooc shay aa rabtid soo gasho way kuu shaqaynayaan. So marka waxaa u baahan tahay marka pointimeter-ka naga dileed ma rabno meeshan oo resistor-ka ku aadan waxaa ku rakibtaa Arduino-ha ku rakib. kaasoo qaad balse waxaa leenahay booska 7 aad ku rakibay koodka u imo marka si hadda rangareeyo ma shaqaynayo by default kii hore uu shaqaynayo maahano kama shaqaynayo wax nal shidmayo ma jiro. si uu igu shaqeeyo waxaa u baahanahay inaan kood aa qoro. So koodka waxa meesha waxaa ka dooranaa blog maaha blog text maaha text ka dooranaa continual so textigan by default asaa ii siinayo ani waxa ii liiga baahan yahay hal waxaa haystaa waa nalkaana samaysanaa marka waxaa leeyahay int maadaama value qaadana integer waay luqadda meesha ku taalana waxa waa C++ aa loo yaqaanaa. So int waxaa leeyahay red led ama nal guduud waxaan iska variable waxaa rabtid si meesha uu ku rakiban yahay sheeg red led-kan wuxuu ku rakiban yahay booska 7 ku rakiban yahay. marka waxaa leedahay red led-kayga wuxuu ku rakiban yahay booska 7 koma calaamadaas oo ha ka tagin. marka meel walba hadda yacni kan built in-kaana meel walba ku jiro control C dheh meel walba oo led built inuu ku rakiban yahay oo by default-iga ah ka bedel waxaa ku bedelataa variable-ka adiga soo samaysatay ku bedel. So meeshan output waxay u tahay nalka wuxuu soo daayaa iftiin uu soo daayaa shay kasta oo yacni wax output sameynaya waxaa loo yaqaanaa output uu soo daynaa. hadda nalka iyo basiyerka iyo waxyaabahan pointimeter-kan hadda input waay tiro qaadana nalkan wuxuu soo daynaa waxaa la yidhahdaa basiyerkan cod uu soo daynaa sensaradan iyo ultrasonic iyo kan oo LRD-gan iyo waxyaabahaas waxay qaadan waxaa loo assign gareynaa input waa loo assign gareynaa laakiin kan output waa loo assign gareynaa isaga. So haddii marka meeshan waa marka loopkeena waxaa waaye uu iska simbal waa loopkeena digital right nalka yacni ha shidmo hal second ka bacdina nalka hadamo intaas le waa meesha koodka ku yaala bis. haddii uu yahay shay oo input ana meeshan digital read meesha ka dhahday kaas waxaa dheh digital right meesha ka dhahday kan waxaa dheh digital read aa dheh wax la soo akrinaa hadday yihiin sensor iyo waxyaabahaas ay yihiin. So okay koodkayga dib igu celi hadda iran karaya. So hadda saa ujeedid kii hore camal blinking uu sameynayo markaan laakiin anaa samaysta koodka anaa yacni board ku xirtay haddaay laakiin by default uu ahay built inuu ahay. marka cashirka intaas ku egaya haddii aa wax ka fahantay fadlan channelka noo subscribe garay muuqaalka noo like garay waa ku mahadsantahay daawashadaada.